والنبي يقول صلوات ربي والسلام عليه هبينك بش شعبان أي كلا برنتوي نس نقطو هبينكاس الله باوحو ضال عداء دومدي سقمانتو انتو أبورتي أردنبو ضال عداء مركو ضال عداء كدبنا وحو وقدم بدافع دمانتو دنبقو ضوا سامحا إلا لبر روح مويه روح مشرك oo ilaahay adoomadiisa ka dhaxaysiiyay wixii ilaahay gooni u lahaa xaqi alla gooni u lahaa oo cibaadadiisa oo tawxiidkiisa oo kaliyeeridiisa ninkii wadaajin galay oo ilaahay adoomadiisa ka dhaxaysiiyay kaasi ilaahay marna u dambi dhaafi maayo waatan quraanku tilmaamayo inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi alla ma dhaafo in isaga iyo adoomadiisa wax la wadaajiyo la isugu daro ilaahay khalqigiisa waxa uu goonida inaad u leexiso waa dambi ilaahay laga galo ka ugu weyn adduunkana wuxuu keenayaa inaan dambigaaga haba yaraatee la saamixin aakhirana wuxuu keenayaa inay jannadu xaraan ka tahay naarna aad ku waarayso saas daraadeed mushrik ilaahay habeenka u dambi dhaafi maayo ka labaadeen loo dambi dhaafayni waxa weeyaan waa mushaahin waa uqdad low waa xiqdile ruux xiqdi iyo nacayb qalbiga ugu haya ruux muslim asagana loo dhaafi maayo waa cajiib mushrika garanay kan uurka ka jiran ee muslimiinta colaada u haya ama xiqdiga u haya ama u xanaaqsan maxaa lagu maagay sababtu wax weeyaan u fiirso meesha la geeyay isaga iyo mushrigii baa la isdaba dhig isla isgarab dhigay waa la fogeeyay waxaan meesha ka fahmaynaa ilaahay tabaaraka wa tacaala dambiyada laga galo kuwa ugu waaweyn waxa kamida inuu qalbigaagu jiran yahay oo u jiran yahay dadka ilaahay adoomadiisa ee mu'miniinta ee muslimiinta waad nacab tahay xiqdi baad u haysaa xasad baa kugu jira nacayb baa kugu jira waa wixii ilaahay diiday tabaaraka wa tacaala meesha kaliyana ma aha munaasabaad fara badan xiqdiga iyo calool xumada kugu jirteed muslimka u hayso waxay keenaysaa meelo fara badan inaad ilaahay naxariistiisa ka qado dambi dhaafkiisa ka qado halis u gasho rabbi cadaabkiisa iyo xuquubadiisa tabaaraka wa tacaala waxa nabigeena ka sugan salawaatu rabbi wa salaam alayhi inuu yiri maalin kasto oo khamiisa iyo maalin kasto isniin acmaasha adoomada kor loo qaadaa ilaahay baa acmaasha loo geeyaa markaas ilaahay wuxuu u dambi dhaafaa cid kasto adoomadiisa ka mid إلا عد مشرقو إلهي أدومديسة حقي الله كدحيسيي مويه يا كلي نين كلاس إساقنا أن لو دافينين ومالين كاسي إساقنا أن خميستي يجمع مركع عماش الله قاضي أن لو دم بدافين واكي والنبي صلى الله عليه وسلم والروحة إساقا إيا ولالكيس مسلم كأي كدحيس الشحنا حقدي أو كدحي الله وحليه تبارك وتعالى لوضن حقدك يا حمانتا إصوها يدبلغ أرنكوضا وكاذية إلى أي كسو هشيان ما يلبضن بعض قاضي مركة لأن إلهي تبارك وتعالى وحوقوش علي هاي أعماشه وحوقوش علي وحا كمذا إن قلبقاقو سليمية قلبقاقو فيوية قلبقاقو حارية ضدك مسلمين تا وضا تشعشه xumaan aadan qalbiga ugu haynin qalbigaagu inuu u fayowiyo nabigeena salawaatu rabbi wa salaam alayhi ayaa waxa la weydiiyay dadka yaa ugu fadli badan rasuul ilaahay wuxuu nabigu sallallahu alayhi wasallam ruux kasto oo mahmuumul qalbi as-saduqul lisan qalbigiisu mahmuum yahay arabkiisuna rum badan yahay waxay yiraahdeen garanay midka arabkiisu rum badan yahay qalbigiisa mahmuuma maxaa laga wadaa maana fahmin oo cadde wuxuu nabigu sallallahu alayhi wasallam waxa laga wadaa huwa at-taqiyyun naqiy
ومدك قلبك سأل كعبس كجرو قلبك سونا الظاهر هاي أو النظيف هاي وسيوة النبي صلى الله عليه وسلم وحيد ومدك قلبك سأن ذنب كجرين قرد الرأي حد قدب الظلم كجرين غل خيانة أين كجرين حسد وسن قلبك سكجرين كاسا إلهي أضوامدا إلهي أغفض لبدن أغنى عليه ساس درادد هذا قلبك حمان كوهيس حالدهاasi iyo waqtiyadaasi munaasabka qiimaha badan ee la issaamaxay waa laga reebi waad ka hadhaysaa waa inaad marka qalbigaaga nadiifiso oo aad daahiriso oo aad ka dhigto qalbi saliim oo fayow nabigeena salawaatu rabbi wa salaamu alayhi saddex bari oo isku xigtay buu saxaabadiisa oo la fadhiyo wuxuu ku yiri waxa idin soo gali doona nin ahlu jannah saddexdii bariba hal nin baa soo galay ninkii haday daba galeen saxaabadu ay fiiriyeen war ninkan saddex bari janno looga marxaati kacay xaalkiisu muxuu ah haday raadiyeen waxa cadaatay ninkaasi cibaadad badan oo uu rag la dheer yahay ma jirin soom badan iyo salaad badan iyo cibaadaad oo saxaabada kale la dheer yahay ma soo bixin laakiin maxaa la helay waxa la helay oo uu sheegay هل هبين أما السيحنين أنيقو قلبي جيجا روح مسلم حمان أقو هيا وميدا ميدا وميشا كو قاري واي سيداس دراد ديد هداد إلهي دم بداف كي سربتو يا عماش هذا إن ميل في عن لقيو قلبي جاجا كشقيو هجاجي حقدي يا حسدك يا حمان تإسكسار وإسكر نظيف الله تبارك وتعالى مؤمنين تمركو تلمامة يصدح قيبوت بوكر في سورة الحشر قاروا مهاجرين قارنوا أنصار قارنوا قلد الصدحات تلمان تنلسية والذين جاءوا من بعدهم لبدا قداشو دكوا يميد مؤمنين تدنباء يدب كيمي يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان وحيدها يا ربي قونود بداف أنك إيا ولا لها نجي نوجه الرئي إيمان كنود بداف ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا قلبك أنك الله حقدها قليني حقدي أنوها إن ضدك مؤمنين تا إله قلبك أنك قليني مرك حقدي هدو قلبك أجا هيستو لبك غفلني واكو هيا لب إنك غفلني واكو هيستا أئمة السلف كرضوان الله عليهم قار كم إذا وحي كفسرين حديث كاس والنبي صلى الله عليه وسلم هبيك شعبان أي كلا برنته إلهي وأدم بدافع أدومديس إلا مشرك يا مشاحن مويه أي ماذا السلف كقار كم إذا وحي كفسرين مشاحن كوحل جودا وأنك صحابة النبي صلى الله عليه وسلم عقدة النعيب كأوهية سيد الإمام الأوزاعي عليه رحمة الله وكفسر وحنشكي كتشرين حقدك كوجيرا ددك aadu hayso sida ay ilaahay ugu kala dhow yihiin buu dambigu u kala weyn dad xiqdi iyo xasad iyo nacayb loo qaado waxa ugu daran uguna dambi weyn saxaabadii nabiga sallallahu rabbi wa sallallahu alayhi lianna waxay ahaayeen awliyadii ilaahay doortay ummadda nabi maxamed ka xushay saabiqiintii bay ahaayeen ardadii nabi maxamed bay ahaayeen kuwii quraanka iyo sunnada lagu amaanay lagu taskiyay bay ahaayeen kuwa markaad xaqdi iyo xasad u qaado shaki ma laha hadaadan gaal ahayn ina dambiile